Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada 7 News Soomaaliya. Waxaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa warbixin ku saabsan buug uu soo wado saygii hore ee Ilhaan Cumar. Balse intaan u guda galin faahfaahinta sheekadan, haddii ay tahay markii kugu horreysay ee aad soo booqatid, subscribe saar kadibna furo gambaleelka si aad u heshid wararkeena iyo macluumaadkeena ugu dambeeyay. Mahadsanid. Buuggan ayaa noqon doona mid shacabka Mareykanka ay si aad ah u gataan Axmed Xirsi oo ay sanadkii hore gaar ahaan bishii November 5 si rasmi ah u kala tageen Ilhaan Cumar oo ay soo dhaleen 3 caruur ah kadib markii uu soo taray warka ku saabsan inay xiriir la lahayd madaxii ololaheeda doorashada Tim Maynard oo ay dhawaan isguursadeen. Axmed Xirsi oo ah shakhsi ku dayasho mudan aadna u degan oo aan inta badan ka hadlin arrimaha qoyskiisa ayaa isna 37 maalmood kadib markii ay kala tageen Ilhaan waxa uu guursaday gabar uu dhalay taliyihii hore ee ciidamada badda Soomaaliya Admiral Faarax Qare, gabadhaas oo lagu magacaabo Ladan. Haddaba waxyaabaha la sii saadaalinayo loona badinayo in uu buuggaasi kaga hadli doono ayaa waxaa loo badinayaa burburkii qoyskiisa iyo khiyaanadii ay ku samaysay Ilhaan Cumar. Wargeyska Daily Mail ayaa horay u kashifay in Axmed Xirsi intii aysan kala tagin Ilhaan Cumar uu mar si kedis ah ku booqday guri ay ka degnayd magaalada Washington, halkaasoo indhihiisa ku soo arkay iyada iyo Maynard oo hal qol wada jiifa, taas oo uu ku soo xaqiiqsaday wararka suuqa ku jiray ee ahaa inay xiriir la lahayd Tim Maynard. Daily Mail ayaa intaas sii raaciyay Axmed Xirsi markii uu kediska ku tagay guriga Ilhaan ee Washington uu la kulmay iyadoo wadata labiska jiifka isla markaasna uu dhinaceeda jiifo Tim Maynard. Axmed ayaa la sheegay in uu muddaba ka shakisnaa xiriirka Ilhaan iyo Maynard, balse uu mar walba sugayay cadeymo iyo xaqiiqo oo indhihiisa ku soo arko, taasoo ugu dambeyn uu gaaray markii uu si kedis ah ku booqday guriga Ilhaan ee Washington. Sida ay dad aad ugu dhow Ilhaan u sheegeen Daily Mail, Axmed ayaa dhacdadaas foosh xun uu la kulmay kadib isagoo si aad ah u careysan uga dhaqaaqay goobta, halka Ilhaan ay isku dayeysay in ay qanciso iyadoo ku andacoonaysa in Tim Maynard uu yahay madaxa ololaheeda doorashada isla markaasna uu xanuun ku soo booday sidaasna gurigeeda ugu sugnaa. Haddaba buugga soo wada Axmed ayaa loo badinayaa inuu in badan kaga hadli doono dhacdadaas iyo kuwo kale oo fara badan. Wargeysyada dalka Kenya ayaa qoray warbixin ku eedeynaysa hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA inay la shaqeyso Al-Shabaab ayna dhaqaalo ku siiso si ay weeraro uga geystaan gudaha dalka Kenya. Qoraalkan oo ay faafiyeen wargeysyada The Star iyo Standard wuxuu salka ku hayaa warbixin laga soo xigtay ilo kala duwan, isla markaasna ujeedku yahay in lagu sii xumeeyo xiriirka labada dal. Waxaase la ogaaday in warbixintan asalkeeda laga soo xigtay bogga Facebook ee mudaharaadka 7 of February oo lagu dacaayadeeyo dowladda Soomaaliya ee hadda jirta. Warbixinta waxaa lagu soo qaaday qoraal uu faafiyey boggaasi oo ay ka mid tahay warqad xawaalad ah oo lagu sheegay in lacag loogu diray sargaal ka tirsan Al-Shabaab. Lacagtaas oo sida loo qoray ay qaldan tahay una muuqata mid aan macquul ahayn oo dhan $1,500,000. Waxaa warbixinta wargeyska ay sheegtay in jaag lacag dhan $1.5 milyan uu Al-Shabaab u diray sarkaal ka tirsan NISA oo lagu magacaabo Cabdullaahi Kulane. Waxayna runtu tahay xaashida kama muuqato warbixinta ay tahay warqad lacag bixin xawaaladeed oo la been abuuray. Sarkaalka Al-Shabaab ee loo diray lacagta sida lagu qoray bogga Facebook markii telefoonka la sheegay in uu leeyahay la wacay wuxuu noqday telefoon shaqeynaya oo qof haweeney ah ay leedahay. Khubaro iyo aqoon-yahano kala duwan oo uu ka mid yahay Jay Bahadur oo hore u ahaa xiriiryaha guddiga cunaqabateynta qaramada midoobay ee Monitoring Group ayaa warbixinta ku tilmaamay mid been abuur ah isagoo cadeymo soo bandhigay. Waxaa la yaab leh in Soomaali badan iyo saxaafadda qaarkeed ay warkaasi sii faafiyeen iyadoo qaarkood sheegaya in ay dowladda Kenya ku eedeysay hay'adda NISA inay taageerto Al-Shabaab. Dhanka kale waxaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku geeriyooday qofkii labaad ee Soomaali ah oo la xaqiijiyay in uu u dhintay cudurka COVID-19. Sheekh Cabdullaahi Yuusuf oo ka mid ahaa culimada Soomaalida ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa soo ritay cudurka iyadoo la dhigay isbitaalka Aga Khan ee magaalada Nairobi, halkaas oo uu ku geeriyooday shalay sida ay sheegeen guddiga Soomaalida. Waa qofkii labaad ee Soomaali ah oo cudurka coronavirus ugu geeriyooda magaalada Nairobi inta la ogyahay, waxaana dhowaan halkaas ku geeriyooday nin oday ah oo ganacsada ah laguna magacaabi jiray Allah u naxariiste
Axmed Maxamed Sheikh. Dhanka kale taliska ciidamada Mareykanka ee Africom ayaa beeniyay war ay faafiyeen warbaahinta Al-Shabaab oo ku saabsan in 10kii Abriil bishii aynu soo dhaafnay uu Mareykanka duqeyn ku dilay qof shacab ah. Qoraal uu la socdo muuqaal ay baahisay Africom ayaa lagu cadeeyay in duqeynta 10kii Abriil ka dhacday Jamaame ay timid markii 6 meyd ah oo ka tirsan ciidamada dowladda ay ku soo bandhigeen goob fagaara ah si ay dadka uga cabsi geliyaan iyagoo ku tumanaya xuquuqdooda. Kadibna halkaasi ay diyaarad daroon ah ku daba gashay mid kamid ah raggii hawshaas ka dambeeyay oo goob cidla ah lagu dilay. Taliska Mareykanka wuxuu sheegay in ninka la dilay uu ka dambeeyay dilka 6 Soomaali ah oo aan waxba galabsan, balse Al-Shabaab ay adeegsato websiteyo taageera si ay ugu fidiyaan warar dacayad iyo been abuur oo ku saabsan in dadka laga dilo ay ka dhigaan shacab. Duqeyntii 10kii Abriil waxaa Mareykanku uu ku dilay nin ay Al-Shabaab ku sheegeen in uu yahay suldaanka beesha Jareerweyne ee Jubbooyinka, Cabbaas Maxamed Xaaji. Duqeyntii 10kii Abriil waxaa Mareykanku uu ku dilay nin ay Al-Shabaab ku sheegeen in uu yahay suldaanka beesha Jareerweyne ee Jubbooyinka, Cabbaas Maxamed Xaaji, waxaana warbaahinta Al-Shabaab ay baahisay meydkiisa iyo muuqaalkiisa iyadoo la aasayo. Dhanka kale dowladda Soomaaliya ayaa jawaab ka bixisay warbixin been abuur iyo gaf ah oo shalay 2 wargeys oo ka soo baxa dalka Kenya ka qoreen hay'adda nabad sugidda iyo qasirdoonka qaranka Soomaaliyeed. Labadan wargeys ayaa iyaga oo adeegsanaya warqad la been abuuray oo ay ku sheegeen cadeyn waxay daabaceen warbixin ay ku sheegeen in NISA ay xiriir la leedahay Al-Shabaab, isla markaasna sarkaal ka tirsan uu 1.15 milyan oo dollar siiyay sarkaal shabaab ah. Qoraal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa lagu yiri sida tan: dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxay aad uga walacsan tahay faafinta warar been iyo marin habaabin ah oo ku saabsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka NISA oo ay daabaceen wargeysyada The Star Kenya iyo Standard. Qoraalka dowladda Soomaaliya ayaa intaas ku daray in dowladda Soomaaliya ay si xoogan u naqdinayso weerarada aadka u xun iyo ololaha gafka ah ee lagu beegsanayo dowladda iyo hay-adaheeda. NISA waxaa ka go'an dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, waxayna dambi u aragtaa warka ceebeynta ah ee wareegaya baraha bulshada iyadoo la isku dayayo in la sumcad dilo hay-adda. Dowladda Soomaaliya ayaa ku baaqday in si degdeg ah loo joojiyo wareejinta iyo daabacaadda wararka la been abuuray ee la xiriira NISA. Waxaan sidoo kale ku boorinaynaa shacabka iyo hay-adaha warbaahinta inay muujiyaan go'aan qaadasho wanaagsan ka hor inta aysan sii faafin ama dib u daabicin wararka marin habaabinta ah ee aan la xaqiijin. Dhanka kale safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya ayaa ka hadlay waxa ay kala socdaan in ciidamadii ay soo tababareen loo adeegsaday dagaalo siyaasadeed oo ka dhacay gobolada Gedo iyo Galgaduud. Safiirka oo wareysi siinayay laanta af Soomaaliga ee VOA-da ayaa sheegay in ay ka warhayaan in goboladaas la geynayo ciidamo, isla markaasna aysan aaminsanayn in ciidamadaasi ay ku lug yeesheen dagaal sukeeye oo ay dhacdadaasi u arkaan amar guud. Marka hore waxaan rabnaa in aan sheegno annaga waxaan dhisaynaa Soomaaliya iyo ciidankeeda qalabka sida, halkaana kuma dhisayno ciidan aan anagu leenahay. Iskaashiga military ee naga dhexeeya annaga iyo Soomaaliya waa mid aad u muhiim ah. Markii aan tababarno askarta waxaan xafladda qalinjibinta ku casumnaa dowladda Soomaaliya, ayuu yiri. Intaas kadibna dowladda Soomaaliya ma siino tilmaamo ku aadan halka ay ku adeegsan doonaan ciidamadan, sababtoo ah ma lihin maamulka dhaqdhaqaaqyada howlgelinta oo kaliya. Waxaan u tababarnaa ciidamada dowladda Soomaaliya iyadaana iska leh go'aamada la xiriira adeegsiga ciidamada, falcelinta iyo dhaleeceynta ciidamada la geeyay gobolada aan ka soo hadalnay. Waxaan ku aragnay wargeysyada iyo baraha internetka. Marka arrintan waxaan u aragnaa in siyaasadda xukuumadda ay tahay mowduuc ay leedahay Soomaaliya, ayuu sii raaciyay hadalkiisa. Safiirka ayaa waxa uu sidoo kale ka hadlay howsha saldhigga military ee Turkisom ee ku yaal Muqdisho, wuxuuna sheegay in lagu tababaro ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya si gaar ahna sare loogu qaado tayada ciidanka militariga Soomaaliya. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri, tababarka guutooyinka ciidanka xoogga Soomaaliya ee aan soo saarno waa sidan: marka hore waxaan xerada Turkisom ku siinaa tababar aasaasi ah, kadibna annaga oo u kala qaadayna koox ka kooban 350 askari ayaan u dirnaa dalka Turkiga si ay halkaas ugu soo qaataan tababar military oo horumarsan, kaas oo ah dhanka dagaalka.